يوسف حسين واكو سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوى هذا رما لا شيء ما هنا رتد الدمار كثاد قرحان مو ورينا كشرب رما لا شيء ما هنا رتد الدمار كثاد قرحان الرما لا شيء ما هنا رتد الدمار كثاد قرحان هذا الدمار كثاد قرحان محاد هايسا wax walbaan haayaa dhigta laakiin si aad wax kala haysiin waligayba anigu ma ahinin banka keena nin beenta sheega nin beenta ka abuura ma ihi wax yar dhagaha siiya afar gobol oo magaalada Muqdisho ay ka mid tahay gobol oo macnaha hadda gobol ma badhihi kare waa caasimadii laakiin aan bal loo ogolay laakiin ay ku qasban yihiin qolada hadii la koon maahay haada samaysa ay ku qasban yihiin waliba inay wax ka taraan laakiin magac dhabaan yayba tidin yayba wax ka qaban inay magac dhabaan xataa waliba waa muhiim biriga tan waa muhiim waa arintayda aan soo qaato oo muhiimka ah bal wasiir Bayle muxuu sameeyay muxuu sayid hadaa nabaayo isha iyo dhegta إيش يدكتها معلنك شرطنا واحدين والبحنتنا واحدية مع بصدها جيسيا أفريقيا وأنيجا روح كلامها وعويه مع بصده ما بقى الله سبحانه وتعالى بالكبقى لكن برشة شعب كالصومالية ولا دباتين يا ولجي وهرجوجيا وكدفاعيا دباتنا وكدفاعيا نجته وكان دفاعيا dhibaatooyinka loo geysanayo qolada argagixisada iyo qolada gacansiiska la leh oo bastrinta ah waa laga tirtiraya wadanka waa laga tirtiraya insha Allah waa ka guuleysanaynaa dadka cadawga Soomaaliya ah oo dhibaatada u geysta oo argagixisada ah oo dhibaato aad iyo aad u geystay oo dhibaato aad iyo aad yaani mataqaana oo gurxan u geystay waa ka guuleysanaynaa insha Allah ta'ala billahi kareem dawladda ay ku dhex jiraan cadawgaasi dawladda Soomaaliya ka buuxaan wasiirada ay ku jiraan wasiirada ku xigeenka ay ku jiraan dableyda ay ku jiraan alifleyda ay ku jiraan dhamaan waa burcada hubaysan mataqaana shacabka Soomaaliyeed gumaadka u geysatay magaalada Muqdisho iyo gobolada oo dhan marka ila dhageysta bal insha Allah bal Soomaaliya waa meeqa gobol ilaahay baan kugu dhaariyay rasuulkiisa baan kugu dhaariyay sheer garay adigoo raaliya oo baati ka jalcan ciduna ku bariyay waxa weeyaan waa Abdullah Wadani oo marnaba aan ka baqan runta ilaa maxkamad la isla tagaa runta ayaa sheegaya xaqiiqo waxay tahay in dadka la haqaray xaqiiqo waxay tahay in dadka la dhibaateeyay sawmaha boona inay dadku isku mid yihiin sawmaha boona midnimada Soomaaliya inay mid qura tahay sawmaha boona in laga gudbay qabyaalad sawmaha boona in la gaari doono hadaf waramida sawmaha boona maxaa keenay qabyaalad maxaa keenay qurunka maxaa keenay xukuumadda federaalka Soomaaliya inay ku kacdo qabyaalad iyo jaclaysi iyo dhibaysi iyo mataqaana muxuu ahaa ishag qaranka hantida qaranka inay ku takrifasho maxaa keenay bulshada shacabka Soomaaliyeed waxaan la wadaagayaa iyo islaamka oo dhan bal ila dhageysta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa si wada jir ah u wada saxiixay heshiis ku kacayo 112 milyan oo lagu dhisi doono magaalooyinka dalka heshiiska ay mas'uuliyiinta wada saxiixdeen ayaa magaalooyinka lagu dhisi doono waxaa kamid ah Muqdisho Kismaayo Baydhabo iyo Garowe iyadoo qaybta magaalada Muqdisho lacagta lagu dhisayo ay ku soo aaday waayahay halkaas ii joojiyo waxa uu waa xamar Kismaayo Garowe iyo Baydhabo okay galmudug xagay aaday oo hirshabeelle xagay aaday ilaah baan kugu dhaariyay miyaysan qabyaalad hagoogan ahayn arinta aaway Somaliland awday Soomaali ma aha Somaliland ma ahan waxa madowga Yurub iyo qaramada midoobay dhamaan ay isku raacday inay Soomaali yihiin iduna ay doonayso gooni u goosan soo lacagtan la buranayo wax ka mara Somaliland
aniga Soomaalidimadaydu waa fogta Soomaalidimadaydu ma ahan mid ku eg ma ahan hawiye iyo jifa hoose iyo jifa kore iyo mid ku eg ma hofri aniga Soomaali dhalada xaqiiqo weey waxaan ka hadlayo waa Soomaali raas casir ila raas gabon degan inay isku hal yihiin okay waayahay maxaa looga gol leeyahay maxaa looga gol leeyahay arrimaha waxaa laga gol leeyahay waxa weeye sharciga oo loo hoggaansamay dastuurka oo lagu tumanayo nidaamkii dawladii noo yilay oo la ixtiraamaynin intaasoo dhan bay xambaarsan tahay ila dhageyso tahay milyan wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxay heshiiskan iyo qaabka dhismo ee magaalooyinka dalka laga hirgelin doono inaan halkan ku saxeexnay mashruuc aad iyo aad u qiimo badan oo sheer galay ya salaam ka yimi oo ilaa 112 milyan ah oo loogu talagalay magaalooyinka waaweyn ee dalka wax laga qabto waxa lagu sii bilaabayaa magaalada tan Muqdisho magaaladeena magaala madaxdeena magaalada Kismaayo Baydhabo iyo Garowe afartaas ayaa lagu bilaabayaa kuwa kale way ka xigi doonaan marka maanta halkan waxa farxad noo ah inaan gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho aan ku kala saxano qaybtiisii halkan Muqdisho qaybaha kalena iyagana dhawaan aan saxi doon waxa lagu talagalay waxa weeyaan marka afartaasi ay ku bilaabaan oo loogu sameeyo wadooyinka iyo meelaha biyaha si wajka waxa la yiraahdo ee drainage-ka waxay ku tusaysaa Hirshabeelle iyo Galmudug dad laay Soomaaliya dad laay tollaay Soomaaliya tollaay miyaanan calanka Soomaaliya loo gafin oo dawladnimadii Soomaaliya loo gafin oo dhibaato adduumo la sameeynin war waxa la yiri walaalka aan wax yar qaybsan wax weyn ama qaybsan doona Soomaalidu waxay ku maahmaahdo waa arrin sax ah oo meel laga soo qaado meel loo qaadi karo walaal aan wax yar qaybsanin na wax weyn ma qaybsada bal waayahay Hirshabeelle iyo Galmudug miyayna dad islaam ahayn miyayna dad Soomaali ahayn miyana loo yagleelaynin meeshaas maxaa ka uray waxa isweydiin wada boontiyada aan taabanayo waa boontiyo booga la dhayo maanto oo dhibaato laga dhayay oo hadda la soo dabqanayo oo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ay ku dhiiradeen inay boogtaasi uleeyaan ay dhibaato u geystaan haddaba qofka bini aadamka ee Soomaaliga ah ee xaqiraynin wadaninimada waxaan ka rabaa warheede Somaliland Hirshabeelle iyo Galmudug maxay yihiin isweydiiya waxaan soo xasuustay oo meel kale iga jirin oo xaqiiqo ah hadda yihiin yeysa u dhasheen ana isweydiiyay waxaan isiri haddana talow ma Soomaali bay ahayn Somaliland iyo hadii ku Galmudug iyo Hirshabeelle Soomaaliya ma ahan miya macnaha saan anigu is aamina waay idinku saad u qaadateen idinka yaqaan laakiin anigu waxaan u qaatay inayna Soomaali ahayn ay tiradaba ku jirinba kala yar Somaliland go'ay maysa marka baashu waa halawda baashu Hirshabeellena waa inay go'daa Galmudugna waa inay go'daa laanahu waxay helayaan ma leh dhaqaale ma leh dekad ma leh airport ma leh habasha Somaliland aba rooro meelay ku carootay ba haysataa maanta laakiin anagu xagee ku caroonayna su'aasha la isweydiiyaa waa taas war haddii lagu diiday haddii la ku ma xamar baalaheedi oo lagu yiri xamarna waa kula leeyahay xoolaha ka yimaada waa kula leeyahay anigu waxba ma lihid haddii lagu yiraaho waxaagana waa kula leeyahay waa dhibaato xanuun kaliya waa dhibaato kurbad leh waa dhibaato yacni ma taqaanaa waa barooni aan la isu baasayn barooni qola kaliya ku kooban tahay
وبنوني الصومال اللي بدأ كفك مركا بورتييريجا إيا نكا ودحايا وحي سوق على محيه سؤال شاسان دي ويديريا هذا علمي أولادي هو هذا علمي أولادي هو أبان عيارة تقانان أنا أقول أولادي هين نندح بودا يجرى أو كدح فائديست هولها صدق هيرشبيله محمد أحمد واري أيا قورت لوجري أو كوريا بري إلهي سوقي هاي كرسي جاسبو يعني وحكى لو صار أغنى ما أنت مريها برتو دمايسو أم بويل كل دمايو أو شغل كل هاي وحا ماشي هدرا يالا دادك أقوياهن كاه أو هيرشبيله ميس ويدين واري وحو أقوهر بددبيه ميس ويدين وحو أقوهر بددبيه هاي dhaqaalaha ayuu ka ilaalinaya nimankan galmudug la yiraahdo waaba galgalaayaan oo ay ku bogtaa si oo doorashabaha galaane waxa uu dhacdhac bay helaya laakiin waxaad ba moodaa Soomaalida in laga saaray galmudug Soomaaliya in laga saaraad ba mudaaba because hadda dhaqaalihii yimiday oo la carbaabay xabad uga tigi ma sharad uga tigi ma aniga xataa waliba jawhar la iga dooro kursiga ugu yaala ma tagay شنو تجي ما مقدشة مقام كي مقدشة هذا شيء وركيس ما بجرو بهاش تمشي تاعتها مرك واسك عدها مرك إن عندها لا اسك صعب معها إن عندها لا اسك مريم معها إن أوكيالا ليجا شلا مرهم كيانا وحو أركانو أنا قد دجال مرهبو أنا قد دبعت مرهبو أنا قد عولاد مرهبي أنا قدلك إن دب لو علينا مرهب أنا عدالة رفض وعنو تاجرها عدالة سنان قرصور ضمان وحلو ولا السمية هاي قفت أنا كوكر عينين حق تجربته إنه وحكون عضو وحوي إيبانك الله جريو إيبانك الله جريو إسلامك الله جريو يعني الدولة نمرنا الدغرة ضد نمرنا الدغرة wanaag iyo sharafta ciise gaana deeqa inta ka baran hadii sharciga dawladdu u hoggaansamin laadahay waa dhibaato inta la eeg umada Soomaaliyeed ay ogow Ilaahay subhanahu wa ta'ala ogow qofka bini aadamka lama haqaro wargal mudug waa dad masaakiya waa dad mataqaana urduna waa dad yaani mataqaana nolol raba hirshabeelle sidoo kale maxaa u diiday inay dhaqaalaha wax ka helaan ii sheega waxa u diiday dhaqaalaha inay wax ka helaan ayaan rabaa arug waxa mataqaana ii sheeg maxuu ahay maqaamkii magaalada Muqdisho loo waayay maxay tahay waxa loo waayay xuquuqda in lagu tunto waa sharcina ma xuquuqda in lagu tunto bini aadamka oo ku nool magaalada Muqdisho intaasoo ku nool in lagu tunto xuquuqdooda marraba ma ogolaanayo mana yeelayo wana ka soo horjeeda mana ogolaadoodo مقام كي مقالة مقدشو ومقدس إن لهلا وقسم بريا معها وانو تاغنها وانو تاغنانا يا وانا أولي مريا عيدان كي يلا يوم جرته مقام ملها عيدان كي يلا يوم جرته لعقت هذا مقدشو لك الشيء جاي أو إن وح لوقو قبتلا ربو لوقو قبا مايو وانا أركي دونتار وانا ندبي دونتار يسوع في رسالة إيجا قرمانت lacagta Muqdisho lagu maal gelin la leeyahay kama jirto jaabkay ku wada dhacay iga qormaanta kaabayga lagu soo galayaa doorashada lagu soo galayaa laaluusha lagu bixinayaa xildhibaanada lagu iibsan doonaa ka bacdina waxa soo noqon doona amba farbaajo amba khayra ay ma doona meeshaan meel ka dheeraana la tigi doona waxaana suurtagal ah in faraha la isla galo suurtagal waa in faraha la isla galo suurtagal waaye laanahu dhibaato xanuun badan waa in dadka la xaqiro dad la wax loo ogolaado dad la diido anigu ma qabo sareexa ma qabo anigu waxaan qabaa ummadda Soomaaliyeed inay silan tahay ummadda Soomaaliyeed inay isku mid tahay raas caseer ilaa raas gaboor inaan wax isla leenahay taas baan aaminsanahay taas baan ku dhimanaya dib uga laaba maayo ujeedkaygu waxaan nacabahay saddex arrimood
saddexda arrimoodoo nacab ahna haddaan caddaynaya tuugga waa nacab ah qaaci waddankana waa nacab ah ninka dalkiisa gatana waa nacab ah ninka diinta been ka sheegana waa nacab ah shabaabna waa nacab ah argagixisada waa nacab ah ninka daba dhilaf u ahna waa nacab ah intaba ma jeclaanayo waa xaqiiqo fideoga waa markhaati mana yeeli doono cidna ka yeeli maayo cidna ka haybaysan maayo gabdhaha iskoolada dhigta wiilasha iskoolada dhigta macdan la'aan baan ku dilayaa mushiin baxabad baan ku dhifanayaa ma yeelayo mana yeeli doono qof muwaadin Soomaaliyeed ah in xaqdarro lagu dilo ma yeelayo cidii maxkamad mataqaanaa ku qanci weysana shantaba ay ku qancaysaa waana la reebi doonaa wixii wax dila waa la dilaya gooraan goor ahaynba waa la dili doonaa insha allahu tacaala billahi kariim wixii wax dila waa la dilaya dilayga waa la dili dil baa u dambeeya dilayga waa la dili wixii wax dila waa la dili xaquna wuu qaban waxaa kuu soo heray ninka qoran haysta ciidamada ka mid ah muxuu ahaa gabdhaha farax xumaynaya mataqaanaa in sheeg muxuu ahaa wiilasha dilaya anigu marnaba ma ogolaanayo hadday dawladdu ogoshahay ay raalli ka tahay anigu ma ogolaanayo dastuurkana ma ku qorra ma ku arag anigu dastuurka sharcigana kuma arag waxaan ogaay maalin dhaweeday wax sharciga loo soo taagaa ma laha nin weyn baa la dilay askartu ka mid ahaa xaqdarraa lagu dilay wilina isbaaradii baa taalla cid looma soo qaban cid maxkamad looma saarin xaqdarradaas xanuunka badan leh marnaba anigu yeeli maayo marnaba ciidanka dhexdiisa xaqdarrada ka jirto ma ogolaanayo dastuurkuna ma ogola anna ma ogoli mana ogolaa doono sharciga ayaa lagu qof walba waxaa laga rabaa sharciga waa la soo wici waxaa la leeyahay war hebelow hebel mataqaa ka saara meesha waa dhibaato aad iyo aad bay dhibaato u tahay marka la soo waco qofka muqaadinka oo nin kale oo askari amba kabtan amba gaashaalla saraa soo waco amba mataqaanaa ciidamada kale haysta soo waco oo uu yidhaaho war waxaas ma jiraane hala soo afjaro bahasha yacni mataqaanaa ninkii la dulmiyey amba gabadhii la dulmiyana ay ooyayeen waa xaqdarro wey xaqdarradaas aad iyo aad baan uga dhilinayaa xaqdarradaas ma ogoli ma yeelayo sharcina maaha haahay sharciga waa in loo hoggaansamaa sharciga waa in lagu kala dambeeyaa sharciga waa inuu sarreeya iyo bridgeska lagu talaabo wadooyinka yaryar magaalada hore loogu marinaya kuwa kalena insha allah waxaan filaynaa inay dhawaan ku xigi doonaan mashruucan isku dubaridkiisa iyo isku duwidiisa waxaa ku shaqo yeelan doona wasiir hoosow iyo wasaaradda howlaha guud ayaa guud ahaan isku soo dubaridi doonta iyadana supervisionkeeda iyo arrimaheeda shaqadaasi iska leh oo dee waxaa la qabanayaa shaqadoodiia wasaaradda maaliyadduna xagga lacagta iyo ma garanaysaa iyaduna ku shaqo yeelan doontaa waxaan aada ugu han weynahay inay magaalooyinkaasi si fiican lacagta ugu horumaraan waxaa ku xigi doona haddii la yidhaahdo face labaad ama weji labaad marka la arko sida wasaaraduhu ay u socdaan magaalooyinka u socdaan waxaa kaloo doonayaa dadka Soomaaliyeed halkan inuu sheego mashruucani wuxuu qayb ka yahay mashaariicdii in la soo furo loo baahnaa ee deyn cafiska iyo qayb ka yahay wadadii dheereed aan soo marnay heshiiskii la gaadhay sanadkii in soo dhaafay Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa okay waxaan rabaa dadku kuma maqlaan dadka inaad ku celisaan rabaa inta gobol oo loo ogolyahay lacag ku celi magaalada Muqdisho ayaa si wada jira u wada saxiixay heshiis ku kacayo 112 milyan oo lagu dhisi doono magaalooyinka dalka heshiiska ay mas'uuliyiinta wada saxiixdeen ayaa magaalooyinka lagu dhisi doono waxaa kamid ah Muqdisho Kismaayo Baydhabo iyo Garowe iyadoo qaybta magaalada Muqdisho lacagta lagu dhisayo ay ku soo aaday okay
وردتك كما بغلان جالا وريه heshiis ku سفع kacayo وشاك 112 milyan oo lagu dhisi doono magaalooyinka dalka. Heshiiska ay mas'uuliyiinta wada saxideen ayaa magaalooyinka lagu dhisi doono waxaa ka mid ah Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo Garowe. Iyadoo qaybta magaalada Muqdisho lacagta lagu dhisayo ay ku 112 milyan oo lagu dhisi doono ayaa si wada jira u wada saxideen. وريه dadka waxay ka doonayaan wax kala lama rabo. Jowhar iyo Hirshabeelle ma ku jiraan baa lagu yiri. Shacabku wuxuu ka rabaa inaad cadayso lacagta halka loogu talagalay cadada ay tahay wariye ku celi halkaas ku celi waxay heshiis ku kacayo 112 milyan oo lagu dhisi doono magaalooyinka dalka. Heshiiska ay mas'uuliyiinta wada saxideen ayaa magaalooyinka lagu dhisi doono waxaa ka mid ah Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo Garowe. Iyadoo qaybta haye ma been baa sheegay marka wariye dadku kuma maqlaan u malaynayo wax yar ma ku celi kartaa adigoo raali adigoo ah oo baati ka jalcad ku celiba wada jira wada saxeexay heshiis ku kacayo 112 milyan oo lagu dhisi doono magaalooyinka dalka. Heshiiska ay mas'uuliyiinta wada saxideen ayaa magaalooyinka lagu dhisi doono waxaa ka mid ah Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo Garowe. Iyadoo qaybta magaalada Muqdisho lacagta lagu dhisayo ay ku soo aaday ay tahay dhawaad 28 milyan. wasiirka waa 28 milyan Muqdisho dhawaad 28 milyan lagu dhisaa bal waayahay gobolladoo dhan ma intaasa Somaliland malaha Hirshabeelle malaha haddii ay ku rooyahay maxuu ahay galmudugna haba sheegay warkaa arku celi bal ku celi wariyo ku celi arwaa u baga taasi ku celi duqa magaalada Muqdisho ayaa si wada jira u wada saxeexay heshiis ku kacayo 112 milyan oo lagu dhisi doono magaalooyinka dalka. Heshiiska ay mas'uuliyiinta wada saxideen ayaa magaalooyinka lagu dhisi doono waxaa ka mid ah Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo Garowe. Iyadoo qaybta magaalada Muqdisho lacagta lagu dhisayo ay ku soo aaday ay tahay dhawaad 28 milyan. wasiirka wasaaradda banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa si wada jira u wada saxeexay heshiis ku kacayo 112 milyan oo lagu dhisi doono magaalooyinka dalka. Heshiiska ay mas'uuliyiinta wada saxideen ayaa magaalooyinka lagu dhisi doono waxaa ka mid ah Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo Garowe. Iyadoo qaybta magaalada Muqdisho lacagta lagu dhisayo ay ku soo aaday ay tahay dhawaad 28 milyan. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ayaa si wada jira u wada saxeexay heshiis ku kacayo 112 milyan oo lagu dhisi doono magaalooyinka dalka. Heshiiska ay mas'uuliyiinta wada saxideen ayaa magaalooyinka lagu dhisi doono waxaa ka mid ah Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo Garowe. Iyadoo qaybta magaalada Muqdisho lacagta lagu dhisayo ay ku soo aaday ay tahay dhawaad 28 milyan. waayahay soo ma habboona in loo qaybiyo lacagihii la hela meel allaala meesha ay ka timaadba ilaa Soomaaliya lacagtaan ku timiday lacagtaan magaca Soomaaliyeed ay ku timiday marka waxaan rabaa marka ummadda inay ogaato lacagtaan halka ay ka timid iyo halka meesha ay ku baxayso ulajeedu waxay tahay sharcigu wuxuu yahay marka in ummadda Soomaaliyeed ay isku mid tahay raas caseer ilaa raas gamboon oo in loo dhiso loo baahan yahay wadooyin amba mataqaana maxuu ahaa jidad oo hor leh amba nidaam kale inay keenaan mabaadi'daas bay ku wanaagsaneed waayahay waxaa la yidhi Kismaayo iyo Baydhabo iyo Garowe iyo Xamar Muqdisho waayahay aaway dadku moogtahay sidiisaba wax inay isweydiiyaan u shardiyo buulaha wa awday mataqaana Hirshabeelle aawe meelihii kale oo la yaqiino caanka ah aawe soo magaalo maaha magaalo dhisan oo dad ku nool yahay soo maaha oo dad ku nool yihiin dad muslimiin oo Soomaaliya ku nool yihiin soo maaha maxaa u diiday marka Soomaaliland yihiin wala Soomaali maaha alloora marka aniga ma aqaano dastuurka ay haystaan dawladda Soomaaliya oo Somaliland faquuqaysa oo mataqaana Hirshabeelle faquuqaysa oo mataqaana gareegal bahaaray faquuqaysa anigu waa garan waayay cida loo wado dawladdan ay dawlad ka tahay ii sheega marka oo kaalay lacagta hadda ay siinayso Jubaland iyo Puntland oo waa la dagaashan tahay maxay kala doonayaan haddana su'aal kale idan
إذا هو سؤال كره اللي هو دولة دي dadkan sa dagaal ay kula jirto dagaal ay kula jirtee maxay u siinaysaa oy galmudug ay mataqaana isha maxuu ahay taasaan la yaabana macnaha dhaqaalana waa siiha waana burburiha meel islama gashee war dowladay meel ku tawfiiq bal horta dowladaynay bal dowladaan iska sheegnaay dowladaynay haddana dowladaynay waaba idin rabnaaho wayna dooranee ya iscadday bal horta waa cadahay waa madoobahay ha isku darin no dowladaan ahay waxbaan diidaa dowladaan ahay waxbaan bixiyaa ha saas baa la rabaa baasha laakiin maxuu ahay sheeg waa ku weerara sharaftaada iyo haybadaada karaamadaada soomaalinimada ku ciyaaraya lacagna waa ku siihaya dee labay kala tabaasha ka daaya allaha waxa loo siinaa daarood miya waa iiduna waa suurtagal iiduna waa macquul wallahi hadda u sheeg qofkaanaa sheega qofkaan horta day fiiri qabyaalad ma jirtaa la leeyahay wallahi qabyaalad waa jirtaa والله قبيلة واجرتها وبقوس وحان كو اوغاني wax kale kama ogaan qabyaalad ila jirto ay maha qabyaalad ku jirto waxaan ogaanay Soomaaliland markii la faquuqay qayb hawiye kamidana la faquuqayaan ogaanay inay meesha wax ka jiraan because raxan way waaba loo ogol yahay walba hadii raxan way la qadalaha aniga calool xumo ee maba qabateen hirshabelle aan ka soo jeedo amba aan ka soo jeedo galmudug calool xumo ee maba qabateen oo waxaan isleeyahay raxan way ila joogto laakiin hadii bar raxan way wax la siiyay oo budlaa jumla wax la siiyay jaasha kana waa ugu dhamaatay ma jirto aqligu inuu shaqeeyo cunu ninkan aqal waay wallah aqal waay wallah arabow rumaantii gacan ku taagay والله ساد وفكرتي أنا قبيلة دوار نعبة مجعلين لكن ساد وفكرتي ماشى وأكتهاي ماشى وأكتها وحاليني ويقايرتي وحمد وبا أرضي وحرام مقام وحباس سجى أقبول أنكو علي عربو ويقايرتي وحربا مقام وحمد وبا أرضي وحربا مقام وحباس سجى أقبول هذا الأرن كان وصورة قال إن لقوم على الصيحة يا دمك معارض وايه الدولة إن القبيلة وضو ولي جاي شيء جري ما بقارن بانو ولي حتى هذا وابا عدا يستمر مركي وح الله وحي كسهر جيدا أي عكت مريان أنا أقعد إني قبيلة صورة مركز أنا أقعد مركز وحنا أقعد مركز الشيخ شريف قران كلا عليي أو حاسة الشيخ لو ديري أو هدينا كل ما يمشي شر ولا قبسة وايين أو عندنا بعض شهور جورجي سلواري مركز أنا أقعد إني قبيلة جفتو ما هذا فهمت اليوم هذا ما فهمت إذا قبيلة ده مرهران أنا أقعد معناه وأنا كهذا الله وحاني ولا يدين ضميت ولا يدين ولي ولا قوة لما يسكي وحب ولا سكورة هذا وحابك صدر صوتبه قبل يوم القشاية اللحوقة قبل يوم القاية وقان قال هي الله كفسيو ولا بعسيوها أساها برتها ده متقنا هذا يشاك ترى حبدا لو كان حنبها برت توق هذا ترى والله هنجبها بان اللي دوا مغلا وترى ميديا يقول جرتها أنا بس أقول شو وحي تري ولا يهنجبها هاي تري ولا قد لها اللي قبرتي دوا مغتها وركوا هذا بارد بريجا حتى وراي كلام تريا بوليس كمية ما قال بي تجانو قبلها لكن عرس بي هايل إيو فيلم كلام اللي سوى جيبه أو قاب كلام فيلم قتل ورتا سيدا دبان نبض ينولول فيلم ما يسوى دجي سلمه واي نبض إيا نولول هداد مغشو والنبض إيا نحدين
ma aha nabad iyo nolol waa nabar iyo naxdin nabar iyo naxdin ayaa la yidhaahaa maahan nabad iyo nolol ma taalla xamar nabar iyo naxdin eraygaa si fiican iga qor waa nabar iyo naxdin nolol iyo nabad bay dhahaan laakiin waa nabar iyo naxdin waxaadna ku ogaa kartaa qaabka loo maamulayo maaliyadda waxaad ku ogaa kartaa qaabka lacagta loo bixiyay muxuu ahay isha galmudug oo lagu kala jabshay waxaadna ku ogaa kartaa askarta qaarkeed oo xiranoo xabsiyada dhex taalla waxaad ku ogaa kartaa garaadada kuwa laga qaaday oo laamiga mataqaan muxuu ahay carrada cablay waxaadna ku ogaa kartaa gumaysiga gaboobay halka uu ka yimid aad ogaa kartaa amba diid amba yaal runta haddaadan rabin iska bax been haddaad rabto anigu kuuma haayo run haddaad rabto weriyahanaa kuu haayo si fiican u dhegayso aniga xataa hay dhegaysanin aniga ha iga rumaysan banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa si wada jira u wada saxiixay heshiis ku kacayo 112 milyan oo lagu dhisi doono magaalooyinka dalka heshiiska ay mas'uuliyiinta wada saxiixdeen ayaa magaalooyinka lagu dhisi doono waxaa ka mid ah muqdisho kismaayo baydhabo iyo garowe iyadoo qaybta magaalada muqdisho intaas ku qanac muwaadin Soomaaliyeed tahay intaa ku qanac hadaa tuug tahana qarciba maysid ila tuuga tahay tuug shaar laba tahay tuug dawladnimo sheegaya tahay burcara tahay malafsada tahay bililqaysta tahay marka inaan ku amaano ma inaan ku amaano hayga sugid never ever waa kaa diiday inaad ummadda caburiso inaad dhaqaalihii la degto inaad meel ku takrifasho inaad hantida qaranka burburiso maya hantida qaranka lama burburi karo hantida qaranka laguma takrifala karo hantida qaranka ummadda Soomaaliyeed baa leh hada balaag meesha ka hadlo meel furud ma meel ciyaarana ma hantida qaranka laguma safaari karo wal adiga magaca hadaan leedahay lagu doorto laakiin lacagta ummadda Soomaaliyeed in lagu doorto ma lacagta ummadda Soomaaliyeed oo dadka u baahan in la siiyo la rabay inaad ku takrifasho ma inaad lacagta dawladda u dhacdo ma inaad mataqaana askarta handada ma inaad dhibaato u geysato ma inaad askartayna sharafta leh oo haybada leh oo karaamada leh oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aad ku tumata xuquuqdooda ma aha waxaydan ahayn inaad ka dhigto ma aha waa kaa diiday ciidamada qalabka sida dad xalaala oo dayibana oo wanaagsan oo sharaf leh oo haybad leh oo ciidanka qalabka sida ah oo mataqaana ma sha Allah tabarakallah doonaya dalkan inuu horumar iyo barwaaqo gaaro ayaa ku jira laakiin dad laaluush la siiyay oo tuuga ah oo argagixisada ka yimid ayaa ku dhex jira oo ka dhex shaqeeya oo dhibaato nagu ah dhibaato nagu yihiin anaga dhibaato xoog leh nagu haya maya markeedu horeba waxa dhibka waxa noo geystay annaga oo meel la geliyo dhibaato noo geystay Xasan Sheekh iyo ninka leeyahay Sheekh Shariif ayaa godkaan ugu riday maanta anaga ma bixi karaan oo ayaga dabada leexleexinay ayaga ka cadda maanta nimankii godkaan geliyay oo horabta ugu riday oo mataqaana meel laga soo noqdaan ugu riday maanta ayaga ka cadda oo gacan ku gambasha orta taasna ku bishaaraysta ma maqlaysid marka nimankan anigu waa la hadlo waxaan iri war intaad u sii jeedaan ayaa cadowgiina idin jeeda waxaan hore u iri madaxtinimada nin laga qaada karo war ha loo dhiibo u shaadadnimaad ka qaadan kartaa loo dhiibtaa anigu bar horaan sheegay waa ku celceliyay hadda 3 guri oo waaweyn oo kiiba aad ku daalayso Turkiga ka dhistay ninka la yiraahdo Xasan Cali Khayrana
waxa uu ku leeyahay asaguna meel kale uu ku leeyahay asagana oo waa ognahay waa la soconaa hantidii qarankood dhanba waxay gashaba dhul bay gashay intii askartii la sii lahaa oo mataqaana maxuu ahaa ku naf weysay iyo dadkoodii iyo qaraxyadii iyo dadkii dhibaatada ay ku dhacda lacagtii dhameed waa la qaatay lacagtii dhameed waa la qaatay waxaa la qaatay oo kaletood oo meesha iidana ka maqan haddii la kun maayo lacagtii loogu talagalay macnaha bulshada Soomaaliyeed oo fatahaada galeen fatahaada ku dhacday oo qaramada midooba ugu talagashay waa la dhacay waxaa la dhacay oo kaletood arrimo lacag fara badan oo macadla wala xisaabana ayaa la dhacay hadaad ogtiyo hadii kalaba day qaraxi soobe imise lacagaa soo gacan gasha ma taqaana lacagtaasoo dhan jeebabay ku dhacday jeebabay ku dhacday laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah jeebabay ku dhacday qaraxi waxaa ka sii daran lacagta la soo aruuriyay afgooyi jeebabay ku dhacday jeebabay ku dhacday waa dhibaato inteena la eg waa dadkina waa weli waa waxa weeyaan waa yaaba yihiinoo dee dadkoodii bay waayeen dhibaato haysatay indhahi bay ka dhaceen cid u gargaaraysana ma laha marka shabaabka iyo dawladdu xabad kuma kala duwana waxba isma kaa dhaamaan maanta naxariis wax le ma jiraan shabaabna naxariis ma leh dawladduna naxariis ma laha taa ogaadha horta dawladda hadda jirta iyo koonka ku shaqeeyaanba naxariis ma laha naxariisa ka sugina naxariis ma laha ninkii hooyo ooyeyska hitam qawaaye ninkii laba luqoodoo go-an ninkiiyoo yaalla qaadi waayeen waay ya oo wuxuu yidhi ariqaada labada luqood uu ka go-an yahay qaraxiyo dhex yaalla ariqaada ou leeyahay asaa la reer maraya wax ka xanuun badan maa jira soomaalinimo oo waxaas aan ka raadinaa maa jirata ii sheega xaggee anigu soomaalinimada ka raadiyaa marka tii siyaad baraaba caanaa heedba tii siyaad bara bil laguma qaadan anaga bil laguma qaadan waxay dhamaa haba dhintaane bil laguma qaadan laakiin tan waxay qaadatay intaasoo kun oo qofood baa dhimatay waxaan inta ku hayaa hadda waxaan inta ku hayaa 100 oo farmaajo kaliya u sugalay 134 kiis aan ku hayaa farmaajo ninka la yidhaaho xasan cali khayre waa ogyahay kiisaskan oo galay madaxweynaha asaga xataa waxbuu ku leeyahay maanta maxkamadda heeg haddii la geeyo ee kiisaskan aan horgeeyo waxbaa laga qabanayaa waa dembiye dagaal waa dembiye dagaal bay galeen qaranka bay ka galeen dhulka bay ka galeen waxay ka galeen dadka shacabka Soomaaliyeed bay ka galeen handaraad bay ay ku haystaan marka waa dembiye dagaal marka waa in maxkamad la soo saaro waa lagu qasbaya intayna doorashada soo gelin waa in maxkamad lagu furaa horta waa qasab waa dadajinaynaa insha Allah beesha caalamkana waa la kaashanaynaa beesha caalamkana waa u geynaynaa dhacdooyinka dhaca waan haynaa profiilkayga ku wada jiraan oo macnaha maxaa ay sheeg YouTube-kayga waxayga baan gashay yani waa soo saarayaa kiiska dacwada bug weyn baa ka haya waa la soo saarayaa marka doorashada la gaaro ayaana soo saaraynaa si looga hortago argagixisada iyo wixii garab siiyo dhan si loo tirtiro beesha caalamka la kaashayna insha Allah waxaadna ogaanaysaan marka lacagtaasi inay baylaha iyo tahay Soomaaliya ogow markhaatina iga ahaw lacagtaas la warwado Hirshabeelle wax kuma laha maxaa ay sheeg Jubbaland wax kuma laha Hirshabeelle wax kuma laha Galmudugna wax kuma laha Somaliland wax kuma laha saddexdaas degmo waaweyn waxay ku leeyihiin ma laha marka waxaad yeelaysiin Soomaalinimada meesha aad u moodaysaan ma jirto Soomaalinimo jirta oo xalaal oo dayiban oo lagu kala dambeeyana meeshaan ma laha ilaahay baan ka baqaynaa rasuulkiis baan ka baqaynaa ummadda in loo sino ayaa wanaagsaneed ma naqanin mana dhicin dhibaato hor le baan haysata waxaaba roonay siyaad barre hal bilbosow oo mataqaanaa xogay madaafiic lagu gamay nabaabiiyay de waa ku qanacsanahay kadib dambe waa iska soo kaban maadaama dagaal la sokeeyay ay hadana galeen laakiin farmaajo halkii maro sooba kaliya xisaab adug siyaad barre inta laga madilin xaqiiqatan yaa la nabay
siyaad barre intaasoo dhimashaa nooma geysan haddana xisaabtamay waa mar waxaan islaa tolow ma laydinka aarsiiyo waaya xataa waa gash ilaa shabaabkii naftigiisii wixii noo kala dhantaale ma gobolladu waa badan yihiin garowga mar geymaayo mar bahalkii maxuu ahaa isha geymaayo beel kale geymaayo anaka jawaanigula bugdhaba xamara eber looga dhigaa xamar waxaa la yidhi waa lagula leeyahaa la yidhi haye waaye haye bal intaan aadaa marka bal meeshaan aadayo dhaqaalaha dawladna waa layga ilaalshay qaraxu waa ii dheer yahay jidka waa iga xiran yahay marka waaye haye bal meeshaan aadayo dee ummadul nabi maxamed baan ahay nolol baan u baahanahay soomaali weyn baan ahay maxaa halaysan oo layga goolaya marka bal waxaan haleeyo oo layga goolayo oo xasan sheekhna meel loogu raacdeeyay sheekh shariifna meel loogu raacdeeyay mataqaana maxuu ahay cabdiraxmaan cabdishakuurna meel loogu raacdayahay war ii sheega bal intaasoo dhan oo dalka wax ka soo noqotay oo heerkan soo gaarsiisay meeshii mataqaanaa arwaa mahadsantii laga dhihi lahay sow dhibaatadeer ma laha sow dembiye qaran lama gelin waxay ka mid tahay soddonka waxay ka mid tahay 134 kiis bay ay ka mid tahay oo galaya farmaajo xaqiiqo way taas marka dalka dadka iyo diinta waa loo sameeyaa inaad diidaan ma aha inaad ummadda ay isku mid tahay baan qirayaa in leesu baahan yahaan qirayaa inay ummaddu isku hal yihiin baan qirayaa marka waxaad samaynaysaan ka daaya ummadda uma fiicno saaxiib ay soo wicin waa ujeedaa inaan leef ku jira marka ummadda inaad qastaan ma ahan ummadda inaad dhiigga ku karisaan ma ahan ummadda inaad shabaab kula heshiisaan ma ahan ummadda inaad dadka ku dirtaan ma ahan ummadda inaad dhibaato u geysataan ma ahan ummadda inaad qarxisaan ma ahan ummadda inaad mataqaanaa isha ka kasbataan xabada ku asqaysaan ma ahan ummadda waa ummadda ilaahay subxaanahu watacaala uuntay wey marka waxaan rabaa marka haddaan fiirshay oo dhan walba u fiirshay waxay ila dhaqatay aniga danuubaan galnay in nagala goolayo le'anna danuubaan galnay nagala goolayo markaan leeyahay waxaa ka cad oo ka muuqda maanta haddaad dacwoto qof muqdisho ku dhashana aad tahay dacwadaada la qaari maayo ilaa madaxweynuhu isu soo amraa oo uu yidhaaho qofkaa dacwadiisa waa la qaari karaa mooyaane haddau diidana waaba la diidaba ra-iisul wasaaraha xataa waa loo geeyaa warkan dhuusadii yeerta waa ogyihiin markaas go-aankaas wuxuu yahay qofkaa dacwadeeda la iska soo afjara waa xataa hadday dhimatay ay ahal heeday waa la soo afjarayaa marka waxay gaartay dacwadaas waa la laalay waa la soo afjaray maxay ku tusaysaa maxaa lagu soo afjaray handadaad iyo cagajuglayn baa lagu soo afjaray yacni marka shacabkii ma hadli karaan shacabkii cidduu hadla hadda aniga idinla hadlayo inta fiidiyoba oo aan duubay oo qabiilaadka aan uga hadlay oo dowladdan aan ku dhaliilayay oo dhan igaar baa iisoo koobiyeeyey waa iisoo diray wuxuu yidhi argagixisadaa la jirta wuxuu kaloo yidhi waxay ahayd talow bulshada shacabka soomaaliyeed baad kicinaysaa dagaal oogaad tahay waa waxay iska dhaadhiciyeen ayaga waa waxay ayaga iska dhaadhiciyeen nabadii dhaxdeen waa waxay iska dhaadhiciyeen marka wuxuu yidhi sideed uga galgala kartaa cadaaladdaa lagu keeni doonaa dembiilaad tahay kuwii oo ma waxaan dembiile ku ahay dalkayga dadkayga ha la nabadgeliyo ma waxaan dembiile ku ahay dadka yaa la xasuuqin ma waxaan dembiile ku noqdo oo shabaab ku noqday war dalka yaa la dilin dadkana diintana yaa la nabin been yaa laga sheegin war ummadaan yaa la xasuuqin macnaha dembiile haddaan ku ahay adeer dembigaas ii kana'in waaba la yaabanahaba anaaba la yaababa waxaa ku yahay malafyadaadii oo cadcad baan haynaa maxuu ahay oo qodbooyinkaagii waxaad ka hadlaysadna baan haynaa
معناها دجال أوجد هذه قبيل بعد وحبال كان ليس بلا أرجع حسنا جيس الدمو يليسا وربحان يلا جيس الدمو ما هو بالنعبة هاي بي وبلا تاجنا هاي بي وأرجع حسنا وما أرجع كرو نكلا شغالة والنعبة أنا هذا بواحد حان كله أم بديد أم بيان محكمة هذا أنا كأجهر محكمة يجي ما أود بدي هو هذه اللي أنا هو واهستا حد يشجع مرك واحد يشجع يسابق على ضوء أولنا يمشي كرت هذا أنا أريك كأول بالنايم شو موجود أول يمشي كرت عيدنا يمشي كرت واحد يشجع كرتها بس كير ولا هلا مرك الشرع هذه اللي أنا شرعي كوتاج ومدى واسكومت dadku waa isku mid diintuna waa isku mid wax kale aad kala goorayso ma aqaan aniga halka aad ka keentay iyo meesha aad ka keentay maxana argagixiso la dagaal taakuleenta iyo ma ka keentay cadeyn baa lagaaga rabaa adeer dambiilada taasaa laga bilaabo arad iyo xiranta dambiila tahay waan kugu soo oogaya xaqiiqo shacabka aniga dawladda waxa isku haynaa shacabka waxaad kitaabka ku dhaarteen shacabka inuu amaan helayaan baad ku dhaarateen war kaalay wasiirka haddii anigu wasiir anagno mar hore idin sheegay wascasilaya haddii aanan mataqaan muxuu ahay ummadii Soomaaliyeed ayaan abdi u keeni karin wascasilaya ma soo taagnaaday war anigu loo xumaa bini aadam baan war dhiigaygu oo ma maahan ee waa dhiig Soomaaliyeed mana yeelay aniga dibna uga laaban maayo sharciga waxa kale meesha yaala ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa isku mid beel walba ay joogan lamana dulmi karo aad ba iibgashaart aad dhagahaaga u fur hadaad shabaab tahay iyo hadaad dawlad isku sheeg ahaad iyo hadaad qurun ahaad iyo hadaad qabyaaladista tahay dhagaha isii Soomaali waa isku hal ilaa raas casar ilaa raas kabuur daarooda haw isaaqa haw Soomaali la waxa doonta haw aday ku taala shughul ku bari aniga I don't care shughul ku bari ummadda Soomaaliyeed waa Soomaali baale warka ku dhacay mana anigu waxa doonta aniga igama samaysan kartid aniguna waxaan doona kaama samaysan karo amba diidan bayaan hadda aniga ba aqaano Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Somaliland waxay galabsadeen oo laga goolayo anigu ma aqaano sharciyan waa barsaraxan u hadlaya marka Soomaalidnimo hadaan u hadlo dadkaas waxa ay galabsadeen maanta oo laga goolayo wallahi anigu ba sheegi karo laakiin waxba laga goolaya dhibaatadaas oo dhan maxay u dhacaysaa waxay u dhacaysaa dimuqraadiyadii baa lagu tuntay dastuurkii baa lagu tuntay nidaamkii iyo federalismkii baa lagu tuntay ahdigii nooyile baa lagu tuntay marka ahdigii nooyile marka hadii lagu tuntay horta fiiri sharci aan wala jira waxa ku tusaya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed nin madaxweyne soo noqdo waxa hada balaag garoonkiya loo diiday waxa la yiri dadkii maxanta aad batalaysay oo yaani mataqaana aad ka soo jeedo kursigaagu yiilay hada balaag ma u gurma kartid baa la yiri deeqna u bagay kartid baa la yiri biyaha hadilaan hufniid waxba kaama gili adigu xasan sheekhna sidoo kale xal loogu bedelay garoonkiyo siiga ka guuraysa diyaarad ka badigi karta in la yiraaho sheeka cusubaba la keenay oo abay helay la yiraaho macnaha nabar iyo naxdin abay helaydaas yaqaan ay ku qaraabtaan waaba sagaarad dhigadkooraba la yiraaho waxay kale leeyihiin madara kaleeto odayaalka qaar aan hadli karin culumadu qaar aan hadli karin culumada magaalada bulsho hal hadli karo kuma jiro hal runta ka sheegi karo kuma jiro hal ka wacdi karo kuma jiro ma wacdi kara maya hal wadaada oo wacdi kara oo dhihi kara ummadan waa dhamaatay ka dhaafa ma jiro
انت اصلا عبسي كليه تكت bahasha waxaa la isla soo galay gudaha la isla soo galay waayahay xay uga duwanta shabaabka laga cabsaa dawladda shabaabka laga cabsaa xabad ka baduw oo wallahi baadii sheegi ma calaamaday bi isla leeyahay calaamadaas hadaad garan karto waa aqliyaad leedahay marka waxaan idin sheegayaa waa mahadsantiin aqli idinku filan idinkaale aqli idinku filan idinkaale wixii galmudug ka uray oo hirshabeelle ka uray oo somaliland ka uray idinkaale idinka rabaa aniga laygama rabo mush aniga ila layga rabo ninka hadda saa samaynaya oo xataa hargeysa sheegi waayo waa wasiirkii hadii ku baa oo maxaa waay sheeg wasiirkii maaliyadda waa hargeysa guriga ka dhistay lacagta muqdisho laga qaaday bal fiiri guri weyn uga dhisay waligay anigu baylo guri dhisaa waa ikow ma arag anigu baylo guri dhisahay wasiir ka hor anigu ma arag xildhibaan soo ahaan ogaa jiray wasiir uu noqday laakiin xildhibaannimadiisii markuu gaaray guri isagoo dhistay ma arag anigu antina meel laga keenay anigu maaqa ma sheegi karo kuna dibaabi maayo laakiin idinku qalbigiina ka dhameystay anigu waa dhameystay niyadda iigu jirtaa waxba ka sheegi ma anigu marka nabaashirbo wuxuu wiri katiina dawla waa kulayl ninkay kobtaysa kaafisaaho wiri koronto dawla waa kulayl ninkay kobtaysa kaafisaaho wiri naakay madooba waa kulayl kii keensadaysa kaafisaaho wiri horta farmaajo saddex walxaanta kaaf ku taal saddex kaleeto waa kulayl aan idin lahayaa wuxuu wiri katiina dawla waa kulayl ninkay kobtaysa kaafisaa koronto dawla waa kulayl ninkay kobtaysa kaafisaa wuxuu wiri naakay madooba waa kulayl kii keensadaysa kaafisaa naakay madooba waa kulayl kii keensadaysa kaafisaa xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ninkan ayakaa keenay ayakayna kaafihe ayakowna kaafiha farmaajo ayakow kaafiyey saddex walxaata kaaf ku taal kiin keensadaysa kaafisaa ay taaganta katiina dawla waa kulayl ninkay kobtaysa kaafisaa koronto dawla waa kulayl koronto dawla waa kulayl ninkay kobtaysa kaafisaa naakay madooba waa kulayl kii keensadaysa kaafisaa ma maqlaysaa marka farmaajo kii keensadow kaafihaa saas waay sheekada saas waay galmudug waxa waaye cagta cadee leef waay hirshabeelle warkeeda iska badda biyihi ku fatahay xaa laga qabta waxba lagama qaban yaa rabo qof ma rabtee qof rabta ma leh waaraa lugta ku walaaqaya mooshin hadday ka keenaan afkaa wax loo geli shacabku waa kici waayeen haddana waa rayad masaakiina marka waa la yaabayaho beesha caalamkana way aragtay in dadkaana yihiin dad suma ay balaayo yihiin ay dawladnimo wax ka ogeyn waa la ogaado waa la arkay marka dheesha iyo wada hadda dheesha iyo wada waa habaqlayso marka weydi salaama maskaxdaydi salaamtay aqligaydi salaamay garashadaydi salaamtay dhammaantiinna waxaan idin leeyahay nabadgeliyo أمانة الله وأنا عبد الله ودري صومالي هنوراتو قولي يا جبنمو